إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ولا ليال waxaynu caawa insha Allah si wadi doonaa hadii Ilaahay idmo dowladii inoo socotay ee aynu ku qaada dhigaynay sanadka arrimaha la xiriira qoyska muslimka aynu meelo badan ka eegnay maanta hadii Ilaahay idmo caawa hadii Ilaahay idmo tabaaraka wa taala waxaynu ugu martiyaa Sheikh Mustafa Haji Ismail Harun wadada garanaysaan waxa insha Allah mawduuciisna uu yahay sida aad ogtihiin uu gidaarada inoogu dhagan qoyska muslimka dhibaatooyinka ku wajahan ama caqabadka haysta iyo ilaahaydan ka Sheikh Mustafa inoo qaada dhigi doona marka Sheikh Mustafa aan ku soo dhaweynaya falyatafaddal mashkuran ma'jura bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبعد أيها الأحبة أن درسك كان كصابسا الأسرة المسلمة والتحديات المعاصرة qoyska muslimka iyo taxadiyaadka taxaddi waa challenge waa waxyaabaha ka hor imanaya ee nolosha caqabaadkeeda ee casrigan jooga intii aan muslimiinta la soo weerarin أنا مثلا دقالكي نابليون بونابرت 1798 أنا مصر قبصنين وحي كهريي مشكلة مسلمين تمي هيسنين كصابصن أفكارته يا مراجع ده يا ما شاء الله نقنيه مركا وحلا اسكو قبطه دبا جرتيا دينتا انت لا طبقاي iyo intaan la tabaqayn ama qofku intuu macsi ku dhacay intaan ku dhacayna oo qadiyatu tatbiiq ayuunba marna gaabinaysay marna dheereynaysay sida kolba dadka iimaankoodu uu xoogamo oo ay islaamnimadooda u tabaqaan laakiin waaga wixii ka dambeeyay isbedel weyn baa ka dhacay caalamka islaamiga isbedeladaasi ka dhacay waxay keensadeen nolosha qofka muslimka oo dhan inay challenge ku noqdaan inay taxaddi caqabad ku noqoto jawaanibta nololeed oo dhan baana taxaddigaasi ka hor yimi hadday tahay mid dhaqaale hadday tahay mid afkaareed hadday tahay mid tacliimeed yacni muslimiintii waa laga xoog batay waana la qabsaday afkaar iyo aaraa iyo caqaa'id kalena waa loo keenay waa la baray waa lagu waday ilaa uu islaamku noqday wax meelo cidhiidhiya ku jira ilaa loo baahday xad la yidhaahdo mustalaxaadkeenna terminolojiga aan caddayno markaasaad waxaad arki waa bangi islaamiya waa jaamacad islaamiya oo maxaynu odhan weynaa waa bangi bas maxaynu odhan weynaa waa jaamacad ila muslimiin baa waxaan islaam ahaynba ma rumaysnin maxaa islaamigan loo daba wadaa waa urur islaamiya waa xisbi islaamiya waa maxay islaamkan la wada daba wadaa waxa islaamkan la wada daba wada keenay waxa weeyaan marjiciyadii baa lagu cidhiidhiyay afkaar kala meesha taala
oo uba muuqato inay iyadu ta rasmigaa tahay. haddii jaamacad la yidhaahdo waxaa loo fahmayaa inaan islaamku shaqo ku lahayn. haddii bangi la yidhaahdo waxaa loo fahmaya inaan islaamku shaqo ku lahayn. haddii xisbi la yidhaahdo waxaa loo fahmaya islaamku inaan shaqo ku lahayn. haddii la yidhaahdo urur waxaa loo fahmaya in islaamku yacni marjiciyo kale ay ummaddu yeelatay. sidaa daraaddeed inta rabta inay islaamnimadeeda muujisato ama soo ceshato waa inay label cinwaan ah islaami xagga dambe kaga sii nabtaa. haddiiba noloshii ay caynkaa marayso maxaad u malaynaysaa markaa gurigii usradu ama gurigu faamiligu qoysku waa unuga koowaad ee bulshada ay ka asaasanto. bulshada la sheegaya waa qoysas isu tegay. qoysku wuxuu ka kooban yahay bulshadu waxay ka koobnayd oo dhan rag dumar dad waaweyn dad yaryar bulshada oo dhan buu matala qoysku. halka qoys bulshada oo dhan baad ugu dhex imanaysaa. caruur baa joogta dhallinyaraa joogta qoyska caadiga ah. dumar baa jooga rag baa jooga waxgarad waayeel baa jooga dhallinyaraa joogta dabaqaatilmujtamac oo dhan buu joogaa. qoysku siduu u eeg yahay bay inta badanna bulshadu u ekaataa. haddii qoysku uu noqdo wax qurux badan bulshaduna waxay u muuqanaysaa wax qurux badan. haddaba darsigan caawa anigu aan ku qoray wuxuu tilmaamayaa waa maxay taxaddiga usrada maanta hor yaalla. mushkilaadka hadda casriga kan dambe haysta waa maxay? taxadiyaadka waxaan odhan karaa taxadiyaad daakhiliyana waa jiraan taxadiyaad khaarijiyana waa jiraan. challenges dabadda kaga imanaya oo afkaar iyo dhaqamo iyo diimo iyo aragtiyo iyo qaab nololeed aanay diintoodu sheegaynoo dabadda kaga timi waa jiraa. waxaa kaloo jira mid gudaha ka imanaya oo dhaqankii dadka laftiisa isbedelaya. diinta intay ka garanayeen baa isbedelaysaa. qaabkay u noolaayeen baa isbedelaysaa. xadaaradan cusub ee la soo galay istihlaakiga aba qoyskii wax badan ka bedeshay. idan challenges guda ahina waa jiraan. marka waxaan rabaa inaan uun muqtatafaat tilmaamo challengeskaa dabadeed iyo kuwa gudeedba si aynu si fiican ugu fahamno. markaa suurad guud uga helo waxaa habboon inaynu aragno dunida iyo qaabkay u taallo guud ahaan inaynu aragno. dunida aynu maanta joogno dowlado yar ayaa power oo ka taliya. laga yaabo dadkooda marka la isku daro less than 20% inay yihiin. populationka dunida ku nool 20% aan gaadhaynin ayaa waxaa gacantooda ku jira almuasasaat altijaariya walmaaliya. muasasaadka dunidu ay leedahay ama wada leedahay ee dhaqaale iyo xoole ha noqdo IMF sanduuqi naqdi dawali bangiga adduunka munadamada tijaarada ee caalamiga ah ama shirikaadkan waaweyn ee la yidhahdo shirikaat alkawniya qaar ku tilmaamaan. kownka mala shaqo kuma lehe waa shirikaadkan uun dhulka aan kusoo koobno. multinationska kuwana yidhahdeen shirikaadkan waaweyn ee dowladahaba ka xoog badan. waayo shirikaadda dhaqaalaha dunida maanta jira oo laga yaabo afrika oo dhan inay hal shirkadii ka lacag badantay. afrika oo dhan oo laisku duuduubo. muasasaadkaa dhaqaale gruubka yar buu gacantooda ku jira. waxaa kaloo gruubkaa gacantooda ku jira muasasaadka iclaamiga ah iyo thaqaafiga. muasasaadka iclaamiga ah media waxaan la yidhaahdo. mediahaasi TV ha noqdo jariidad iyo majallad ha noqdo shaneemo iyo filim ha noqdo wax allaaliya wax lagu qoro iyo wax faafiyo iyo la daawado iyo la akhriyo isaguna inta ugu badanay gacantoodu ku jira. iyagaa markaa dunida u laqima siday u fakerayso siday wax u arkayso waxa ka dhacay sida uu eegyahay dhacdo kastoo dunida taalla. iyagaa inta kugu akhriyaan baad si u fahmaysaa inay sidaa arrinku yahay. waxaa meel heblaayo ka socda BBC-da jiri CNN-ta sheegtay hebel baa sheegay caynkan baa sheegay markaa sibaa lagaaga dhaadhicinaya inaad u qaadato.
waxaa intaa dheer oo sii daba socda jaamacaadkii iyo wixii la midka ahaa mu'asasaadkii tacliimiga ahaa oo inta ugu badan ay gacantooda ku jiraan haddaanay gacantooda ku jirina manaahijtooda oo markay jaamacad yaroo afrika ku taalla ama meelahan ku taalla ammaan rabto inay sheegato dee waa inay tidhahdaa jaamacadaha ingiriiskaanu ku xidhannay ama imtixaankayga ingiriiskaa qaada ama jaamacadaha maraykankaanu ku xidhannay hadday tidhaahdo dee waa laga dambaynayaa taa waxa weeyaan waa jaamacad khatare baynu u qaadanaynaa marka haddaana iyagu inoo imanna innagaaba ku faanayna inaynu iyaga xilfi wadaag la leenay aqoomeed iyadoo laga yaababa aqoontii rasmiga ahayd inaan ahayn waxaynu dhignoo dhammi waxaa kaloo intaa raaca alhay-aat addawliya ee almutaxida iyo munadamaadkeeda tirada badan leh ee munadamada caafimaadka munadamada maxaa la ydhahaa unesco munadamaadka UNDP waxaan tirada badan ay hoosta ku wataan intaasoo dhan marka la isku daro waxay kawinaan afkaarta maanta dunida musaytirka ama xooga badan lee socota saa daraaddeed maalan hay-ada almutaxida oo aan odhan karno dee waxay matalaysaa ra'yiga ragga waaweyn shanta dowladooda vitogale iyo inta daba socota ra'yigeeday matalaysaa munadamadaasi waxay qabataa intaasoo mu'tamar iyo urur oo ku saabsan qaabkan aynuu soconno qura qoyska haweenayda iyo ilmaha soo faamiligu intaa kama koobna waa imaa qofka dumara ninka isaga wax badan cidi ku fali mayse iyo carruurta labadaasaa wax badan mu'tamaraad loo qabtaa maalan waxaa ka mid ah mu'tamaraadka sukaanka iyo tanmiyada bay idhaaheen kobaca bini aadamka ee dhaqaaliya dad mu'tamaraadka loo qabto inta badan 10kii sanaba mar bay qabtaan 74kii 74kii Bucharest baa lagu qabtay 84kii Mexico baa lagu qabtay 94kii kadna baynu qayladiisa inta badan maqli jirnay qaahira lagu qabtay مثلا كقاهرة لغو قبطي بقول يلحدن دولادات بقى سوق قيب قلي يكون يلا بقول أو أورور أو NGO يا منظمات غير حكومية NGO يا أخوة شكتا كون يلا بقول أو أورور إمسا مسلم هذا ما لينس كون يلا بقول أو أورور يبقول يلحدن دولادات بقى سوق قيب قلي بينهذا محل النقاش هو وينه وحيابا ugu weyn ee la niqaashay waxa kamida al-hurriya al-jinsiyya in dadku xor u noqdo sagaskiya galmada oo waxa laaliya waxa qaanuun waxa xaaraantinimeynaya baabka ku saabsan in la tuuro waa inanka lama xukumi karo inanta lama xukumi karo guurku waxa taqaaneen maaha rag baa rag guursada dumar baa dumar guursada waxba waa la isku daraya wixii la doono وينو نقضى فري شيء labaad ee ugu weynaaye isna laga doodayay ee mu'tamarka boqol iyo 60 dawladood isugu yimaadeen iyo 1200 oo urur waxa weeyaan uurka aan la doonin in la tuuri karo yani in ilmahan la iska soo ridayo qofku inuu xor u ahaado hadduu marquub ahayn wax la doonayo hadaanu hayn in la tuuri karo waxa jira mu'tamaraad kale oo dumarka oo qura loo qabto oo iyana hoos yimaada United Nations ka ayaa waxa hoos socda مثلا waxa kamida mu'tamarkii Mexico lagu qabtay 1957kii oo shicaarkiisu ahaa al-musaawat wa tanmiya wa silm mu'tamarkii Copenhagen lagu qabtay 5 sano kadib 1980kii مؤتمركي نيروبي لو قبطي 1985 مؤتمرك عان كاينو يمكا وركيسه ولي خوغا او مقالو ee bakiin lagu qabtay 1995 ka bakiin waxyaabihii ugu weynaaya lagu niqaashay maxaa kamid aha gabadha iyo caafimaadka gabadha iyo xuquuqdeeda gabadha iyo faqriga gabadha iyo bii'ada wasiiqadii ka soo baxday maxay yiraahdeen hal wasiiqo ka soo baxday waxay sheegaan 230 goor buu ku soo aroray ereyga gender ma taqaanin genderku luqa ahaan
wax sagas ku dhadhow lab iyo dhadig laakiin ma aha socially markay inoo fasirayaan iyagu say u sharxayaan waxay leeyihiin ninnimadu iyo gabadhnimadu waa dawr ijtimaaciya waa wax qofku uu matale wuxuu u dhasho maaha gabadhan biologically aynu inagu gabadha u naqaanaa gabadh maaha ninkan aynu nin u naqaanana nin maaha shaqadu bulshada ka qabto bay ku xidhantay gabadhuna nin bay noqon kartaa ninkuna gabadh buu noqon karaa marka shaqadaad bulshada ka qabato saa daraaddeed baa waxa la diiday in female iyo male la qoro مثلا دولته أفريقيا قيبة بدرو كميدا يا مسلم كي وحاسة ديدا يا رجاسي وكضوضي مركز اللي يقول جدها الله صار جدي بقى الله صار هرجال بدو حيلين ما جندر وين لو قراوة كاسيو جندر لما بقول يصدق نقر وثيقة قوية لو هلا ديفاين قريه بهلا شرح يا رجال محيي وثيقة دي قدام يسوي حكوا صباح دايما تغنى شرحي مركي لقوه الشيء ويا وحلا لقو قري the non definition of the term gender بيد عليه والله ما شرحان نولو بصاد دون توقاضو دوني يسوتيمي او وراق ودا قرانيسا او waxa ku qoran la nولو بصاد دون تو فهم لaba sharxayo way lagu heshiin way erayga gender ku qora qof walba sidii aad adigu doonayso u qaadun weeyaan waa the non definition of the term gender baydaade waan sharxi doonaa waxaasi oo dhan mu'tamarkaasi waxa ku xigay mu'tamar ka dambeeyo New York lagu qabtay 2000 مؤتمرات كاسودن waxaan rabaa inaan idin sawir idin siiyo waxay ama qaanuun ka dhigayaan ama tadwiil la dawladeynaya United Nations intuu qaato la oranaya dunida hoos timaade ee memberka ka ahi waa inay fulisaa waa qaanuuna United Nations ka soo baxay afkaar wa taswiiq lil afkaar baa la faafinaya waxa soo mu'tamar inta loo qabto lacag lagu bixinaya la wadaya afkaartaas waxa lagu sameeynaya idinku waxa taqaaneen malaayeen i'laanaat loo sameeyo maxaa la yiraahdaa cunada iyo alaabtan ay iibsanay waxa loo sameeyaa maxay taswiiqa marketinga i'laan waxa ka weyn i'laanka maanta dunida afkaarta loo sameeyo afkaar baa la faafinaya afkaarta قرحين لقرحيي ومثلا أفكار يضل فافينيو مصطلحات كدك يتشعلين بالغو استعمالها حقوق الضمركة حقوق العرور موقف بني آدم حقوق يسديدا بجرة دي لو حقوق الضمركة دي واحد سلا ده وحفي عن صحيح معها لكن حقوق الاشياء وحويان ان السوق ده وين يجري كرتا سكس قاعد يدون توين لا 70 كرتا شرع ما كما حدنا قانونكو إنه جور كم حدنا سجسكو جور يجور لا ولا 70 كرا فاملي جود الدجنان كرا فاملي محل الله يقانا نين يجبر السقبة وشرع اللي يسقو مهرية وحدنا بشرع وهذا وحكى الله يقانا بين نين يجبر ود الدجن مهربا يودعينه وحلا الله يقانا لبنين ود الدجن والله يسقو مهرية هذا والله لبنين وحلا الله يقانا لبنين والله يسقو مهرية ود الدجن بكلية وحلا الله يقانا لبدو مرة الله يسقو مهرية لبدو مرة الله يسقو مهرين إلا لبيا طبعا qaybood wax ku dhadhow buu tilmaamayaa wasiiqada United Nations iyo qoyska maxaa qoysa adu marka aad maqasho usrada hal horumariyo waxa soranaysa reerihiiba wax loo qabanaya oo familieski iyo qoysaskiiba la wada laakiin qoysku sitaa waa qoys nooca kana marka aad maqasho xuquuqda dumarka waxa sileeday xuquuq dumar baa laga hadlaya laba mid oo عقلك بني آدم كجلي كره هوست اللي جسوا جلينيا قول كفر محل هذا إيش أقول شيء شرين هاي فرعونية قول نيك فرعونية هل تشوفيات ملاك واركسا تبتنا كنتم كلنا ولا شرحية إذن وللتزيين ولا قرحنا يا وحكا وللإغراء العقبة الوبحية إمشي جوابا ما أنت هرجسا كفرا وهو حير يرون سوقاطه هيئات يونايتد نيشن كي ماشي جوجا iyo kuwa kale tirada badan le meesha jooga waxay bixiyaan projects mostly projects kaasi maaha wax development ku saabsan wax umada wax taran maaha qofka qaadanaya hungurigu isagu uga dan leeyahay 5,000 10,000 waxba lagu soo siinaya shir yar baad qabanaysaa capacity building iyo beena kale la sheegay iyo waxa loo xuquuqda dumarka laga waramaya ama gaal yar baa imanaya ama mid yar oo Afrikaan baa imanaya oo xogaa la jira jeedinaya waxa kan waa
laaca la isu dhigo markaad wax dabanayso maxaa la sameeyaa qofka raba baadiye inuu ugaadh soo dabtaa muxuu sameeyaa haddaanad laac dhigin laac waa waxaan loo dhigay dee dabinka ma soo doonanayso sabab ku kalifaysa inay dabinka u timaadaa waa inuu jiraa waxaani waa laac la dhigayo laakiin afkaaro badan ay ka dambeeyaan mararka qaarkood alminax baa ku xidhan dawladuhu waxay bixiyaan waxaa la odhanayaa dawladdaasi xuquuqda bini aadamkay ku xadgudubtaa la siin maayo aidiskay dawladaha waaweyne bixin jireen xuquuqda la sheegaya waa maxay waa ragga u taga ayaanad xaqooda ogolayn ama qaanuun ciqaabaya baa leediin uganda iminka qaanuun ciqaabayay saxeexeen dabeetana dunidao dhan baa qaylinaysa macnaheedu waxa weeyaan in la yidhaahdo waxa isku xidhan waddankaasi xadka uu ka gaadhay xuquuqda bini aadamka iyo minaxa la siinaya laakiin xuquuqdan lagu sheegaya maaha xuquuqdii bini aadamka aynu isla naqaanay ee gaal iyo muslimba la isla qiraya maaha waa afkaartii reer galbeed qayb badan oo ah baa dabada kaga naban oo xuquuqda bini aadamka ka tirsan waxaa la mid ah alcunf in laguba isticmaalo dawladaha waaweyne waxay yidhahdaan waddan hebel baa xuquuqda ku xadgudbo power baaba lagu isticmaalaa askari iyo qori ama maahee almuqaataca aliqtisaadiya cunaqabatayn waxaan leenahay markaa caalamkan aynu joogno inaynu fahamnaabay ku fiican tahay si aynu u garanno usradan yar taxadiga hortaagani waa maxay war qoyska dhibta haysataa waa maxay qoyska laba dhibood baa haysatay leenahay dhib waa dhib khaarijiya oo dabad ka timi dhibna waa dhib daakhiliya gudaha ka timi awalan waa fudud yahay xalku oo waa muslim ahow ilaahay nabigiisii moxamed aha muxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam yaa ayuha nabiyu taqi illaah maxaa ku xiga walaa tutic alkaafiriina waalmunaafiqiina wadac cadaahum watawakal cala allahi wakafaa billahi wakiila baa ilaha yidhi yacni aayadda dambe aan akhriyey iyo aayadda hore waa walaa tutic alkaafiriina waalmunaafiqiin isku soo duuduub ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu tilmaamayaa munaafiqiinta iyo kaafiriinta ha aqbalina dee way ku dhibayaane maxaad yeelaysaa markaa wadacadaahum baa la yidhi dhibtoodana iska dhaaf watawakal cala allahi wakafaa billahi wakiila baa ilaha yidhi ilaahay tala saara ilahay baa kugu filanay haddaba waxaan rabaa inaan tilmaamo dunidu way isriixaysaa waa bashar berigii hore waxaa la odhan jiray waa qaarado iminka way noqon weyday hadda waxay idhahdaan waa village iminka markii internetyadan iyo waxaan tv-yadan dunidao dhan laga daa waxaan soo baxa waxay dhahaan war village maahe waa qurfa bay dhahaan waa maqsin hadda dunidao dhan waa qol waayo waxaa dunida yaalloo dhan qolkaaga gudihiisaad ka helaysa dugaan meel lagu bixin internet gashaya iyo tv furtayaaba waxaa dunida ka jira oo dhan qolkaad joogtaa buu yaallaa haddaba taxadiyaadka qoyska haystaa muxuu yihi taxadiyaadka qoyska haystaa waa laba qaybood gaaladu markii hore ay inoo timi ee dunida muslimka isticmaarka ku samaysay hal wax may faragelin inta kaleo dhanna way faragelisay masaladaa u fiirso hadda inta kaleo dhan way faragelisay oo qaanuunkoodii bay u dejiyeen qaanuun madaniya iyo mid criminala iyo wuxuu doonaba ha noqdo hal wax may faragelin qadiyadda qoyska ay u bixiyaan axwaali shakhsiya maalan ingiriisku markuu inoo yimi qaadiyuu yaman ka soo kaxaystay shaaficiye ah isagoo qaadiye muslima watuu inoo yimi wixii arrinta qoyska ku saabsan guur ha noqoto dhaxal ha noqoto wax allaaliya wixii qadiyad qoys ku saabsan sharciga islaamku yidhi ku dhaqa ilaa haddana caalamulislaami sidii bay sharciga islaamka loo hayay waxa kaloo dhanna sharciga laalaaba buu yidhi waxa kaloo dhan waa la laalaaba laakiin masaladaa wuu iska ilaaliyey iyaga laftoodu masalada tan kumay dhiiranayn inay usrada baabiyaan ama reerka waa dambey waxaana ku soo kordheen waaga hore ay gumaysiga wadeen faamiligu iyaguba faamili bay u arkayeen qawaaniintoodana wuxuu dhigaysay faamiligu inuu yahay nin iyo gabadh isqaba laakiin afkaartu way isgediday
aan laba qoraal oo United Nations ay ka soo naqliyaan tilmaamo 1975 مناسبة العام العالمي للمرأة مناسبة العام العالمي للمرأة waxay soo saareen taqriirkii hay'adda الأمم المتحدة ka soo baxay wuxuu qoraya باللغة العربية هدان ku akhriyo إن الأسرة بمعناها الإنساني المتحضر لم يعد لها وجود إلا في المجتمعات الإسلامية رغم التخلف الذي تشهده هذه المجتمعات في شتى مجالات الأخرى waxay dhahdeen usrada qoyska oo wata macnihii bini aadamnimo xadaareed wuxuu dunida ka jira bay dhahdeen caalamka muslimiinta inkastoo muslimiintu nolosha inta kale oo dhan ay mutakhalifiin ka yihiin nolosha inta kale oo dhan waa dib u dhac ba kaga jira bay leeyihiin laakiin qoysku ninka mas'uulka ah ee reerka haya ee ka mas'uulka ah ee caruurtu joogto ee dumarku joogaan cid walba ee isku xidhan ee takaaful ka dhaxeeya is ixtiraamaya kala dambeeya ee is adeecaya ismaamula qoyska noocaasi wuxuu ka jiraa bay dhahaan dunida muslimiinta tamaaneed waxa weeyaan ammaan leeyno soo jeediyay bal imkana cusurtan dambana dhageyso ممثلك صندوق السكان في الأمم المتحدة و UNFPA ee هولندا waxa la yiraahdaa Ari Hockman ayaa wuxuu ka khudbadaynayaa nadwo lagu qabtay Mexico marka wuxuu ku faraxsan yahay isbedelka dunidu ay qoyska ka samaysay hadda muxuu leeyahay in irtifaac mu'addalat at-talaq wa kadha irtifaac mu'addalat al-mawalid kharij nitaq al-usra يعد نصرا كبيرا لحقوق الإنسان على البطريركية وحلية هي ترادا بضطية فريتانكا طلاقي دوني دو بطيبو لي وحكالوب بطيبو لي عرورة الشرع الدهرة كدالتا ينقور لغو دالين labadaaba waxaan u arkay abuu leeyahay guul xuquuqda bini aadamku ay gaadhaynay tahay waliga ma maqashay waxa ay dhahay in la isfuro iyo in caruur garacye inay dhalato wuxuu ku tirinaya inay tahay yu'addu nasran kabiiran li xuquuq al-insan ala al-batrarikiyya batrarikigu waa maxay waa mujtamac ninku ka taliyo mujtamacii ninka taliska ahaaba laga baxay buu leeyahay laga xoroobay oo dumarkii iyo caruurtii baa ka xoroobay marka sharci darrada waxbay ku dhashay markay doontana furitaankeeda ay qaadatay wuxuu ku tilmaamayaa markaa inay tahay xorriyad Annie Foster daraasa uu sameeyay waa Maraykan wuxuu leeyahay dunidu caqligii hore ha ilowdo ee ahaa sakasku inuu tuu yahay mailan fi mailinu yahay al-ajnas al-khamsa hada weeyaan buu leeyahay nooca bini aadam إن تقسيم الخلق إلى ذكور وإناث بيقول أصبح واقعا تجاوزه الزمن بني آدم كاين مكان الله قيبيه بيقول الله بيددك وور لقيت جيبوا ليه ولم يعد يعبر بدقة عن حقيقة الواقع الإنساني ذلك أن الواقع أصبح يحفل ب5 أجناس وروح لا إذا نين يجبر الدنيا ده هدا كم تشرانه شن نوع بني آدم ما بهد تشربوا ليه وكوي رجع برجي هرا لورين شري ولا دي دمر كبرجي هرا لورين شري رجع عصبة رجع كرة دمر كعصبة دمر ككرة إيوه إن رجع يدمر كالليسكو بدله كون أي بيولوجيكالي أنت قلان إن أي بدلان مركز يعني نبى الله قلايا هرمونال الجمود يا الناس الله سمعنا يا مهبل صناعي الله سمعنا يا ولا جبرين يا سقوا جبروا مركان ولانا يا فعلا ما هو ملاينيسا متكاسي انتو سو اسلام او دينتا ديب كفهمي ان لا غران واي صفك مساجدك حق لو دري دونو حق دبركا لغي حق رجال لغي عالم اينو جوجنا ما هدراسن ان قوري سميو قودا waxaanu sheegayno afkaartaasay United Nation عولمه وسمينيسا United Nation بربطه globalization أفكارته نوع عصيانة كسميسو
وهي أكبر منظمات العالمية لحقوق الإنسان وأشهرها على الإطلاق أي وحي لا ضحي وإن للضمان قاد كافة الحقوق للشواذ على المستوى الدولي القانوني والتشريعي مركزها اللحدا دولة دوديدين بلا وحي هذا أري كانهم سكشوال في إنجليزي قالوا هذا وأري هلا الطورة بيد هذا ما استعماله LGBT وحلا هذا LGBT ما غشة LGBT وآخر كلمة دود الله يسكرنا باي إيش وحي وتاج أنت لسبيان دمر كفولة يجيد وجاي رجع كرة بيدو بايسكشوال ومد لبضر دم باستعماله تيدا ودم بايسانا وترانسجندر بيدا وكون لبدلين شيء جيني مركا LGB هاللي بدل بيلين ماشطن وحقوق ضد هالراديو هذا بقى أيها الإخوة أفكار تاس رنتي ما ها أفكار مساجد لقى وربه لكن وحنبقى يا يضو يرسعون السه إني مقالوين كيدين اللي شوكتو والتحديات خارجية وقرية كسوكر دي إمك وحي تاغيين الهندسة الاجتماعية للأسرة بين هذين وفاملي بوحو بهاي إن مهندس لوغو يارو هندسة عصبي محي شيغيسا وحي شيغيسا قفك بني آدم كدورك وبلشدك قادنا يا دورك الله تبارك إليه هدين إنما الله تبارك وانن دي قبض إنما الله تبارك وقبض فعلا نوى يسكت ضيان مو ملاين سائل لسمية تجارب بني آدم إن تميلوا أرورية إن تجربة داسي لوغو يارو خبرة داسي أولا ليه هاي قارنا رجاية قارنا الضمرية إذن كانوا إيجين biologically say ilahay waa abuuray haweegi nin baa la rabaa la soo saaro ninnimada gabadhnimo dareemayo ku faanayo dowrkii gabadhnimo haya gabadh baa la rabaa la soo saaro ninnimo dareemayso faanaysa oo iyadu leh waxay yiraahdeen wadiifatu al-umuma hooyanimadu way yiraahdeen ma aha shay mulasakh waa shay ku dhajisan dumarka ma aha bay yiraahdeen waa wadiifa ijtimaaciya وشقب بالشهادة عندي قبضتم به هو ينقط بيلين ننه هو ينقون كرا قبضين هو ينقون كرتا عيد والبا ووظيفة اجتماعية أيها الأحبة واجه روح لنا استعماركم مركو ودنا قميسانية وحكسه الرئي مبشرين إيا مستشرقين وداده ديمه هو دي سيدة إيا بكسه الرئي نمان مستشرقين لدى أورينتاليست niman la dhaqamada iyo afafka dadkan u baranayna oo sahana ah kadibna waxa la bilaabay dawr tacliim waxbarashadii iyo iskuuladii waxa la sameeyo kadibna waa la qabsaday hadda kolonism cusub baa socda isticmaar jadiid hadda jira laakiin adawaadkii mustacmarkii hore ma wato wasaayishii hore hadda la isticmaali maayo hadda wasaayisha cusubi waa munadamaad غير حكوميه waa NGO iyo وهيئات كإغاثية هيئات هدت كو جرجارة ويونايتد نيشن وأورنا عاصيو أن مقعد دولتين وضن باكوي منايا فعلا رقبي مثلان لكن مركو كوي منايا وحوطا وحكلا دبتنا لا عاصي دادين أيان يمكن مسكين كيرب بادية شوكا مركا أبارتو قبصة محوي هذا حالي ده منظمات كعالمي جاية محي دغبحياش الدنيا ده نسوق قاعدين بين هذا ويوان من كاسم ملك استشوجا أو حاوية هذا فلسفة الله وضع مركا وحيتها آخر حسن للإسلام قد كي يقدم بين مسلم وقاله وها قد كجوريجا فامليجا أيال الربعين لسكبحيه كي يقدم بين مال شرع الإسلام سفي عنه قد نغمه guriga masaajidku baa hadda jira soo kama masaajidda inta badan meelaha qaarkood waa la isku dayeen faatixadana laga bedelo salaada Soomaalidan maqal Turkiga in af Turki lagu tukan jiray oo la diiday in faatixada af Carabi lagu akhriyo Allahu akbar af Carabi ma yahay hayda imaam ba salaad galay kaasoo af Turki Allahu akbar ku yiri dadkii midba mar buu gooyisa qaatay deelay waxaan salaad maahay
salaamu calaykum markuu yidhi oo af turkiya ayuu xaggaaga mise cidiba lama joogto xagga kalaaga cidiba lama joogto muslimka xadkaasaa la soo gaadhsiiyey xataa masaajidka in la yidhaahdo af kalaa lagu tukanaya laakiin innaga weli kaasi inama soo gaadhin keeni baynu iskaga tukanaa faatixada weli imaamku u akhriya masaajidku innaga in badan isma bedelin inkastoo meelaha qaarkood la soo rogay masaajidka in kaadh lagu galo si loo ogaado inta goore aad jamac tagtay ilaa 5 salaadood haddaad tagto irhaabi baad qoraysaa gurigana weli islaam buu jooga oo bulshada markaad eegto miyuu inagu jiraa reer aan meher isu qabaninoo jooga miya jira waa maya yani bulshadu ma aqbalayso waa in nin iyo gabadh isqaba oo la isu meheriyey oo qaadi ama sheekh isu soo meheriyey wayna yihiin carruurtaasunbaa la ictibaarinaya inay yihiin carruur xalaal ku dhalatay gurigaa unbaa loo arkaa guri xalaal ku dhashay waa laga yaabaa marka meherka la sameeyo in saacadda ku xigta fisqiga la bilaabo balkaalay canabe iyo hees la isu qaado soo maaha waa arooskii la yidhaaho laakiin haddaan intaa la samaynin guriga ma ictiraafayno idan gurigu iyo axwaashiisu caalam alislaami waa meesha sharciga islaameed uu ka jiro ee ninkiiyo gabadhu hadday isqabtaan loogu gar noqo ee gabadha talaaq hadday noqoto lagu furo ee ninku hadduu wax furayo uu sharci islaam wax ku furo hadduu wax guursanayo sharci islaam ku guursado hadduu carruur dhalay lagu qasbo inuu beeliyo hadduu gabadha qabo lagu qasbo inuu waa meesha qura sharciga islaamiga uu maxay uga jiro 100% haddaba halkiiba imka la isugu soo dhigtay taxadiga koowaad aalumada islaamiya hadda haystaa wuxuu yahay goobtaasaa la rabaa sharcigani wuu ku raagay in isna laga saaro intii hore laga soo saar bulshada cusub markaa terminology hadda layna soo galay eray bixintii baa bilaabantay umuumadu inay wadiifa ijtimaaciya tahay gender wax la yidhaahdo imka eraygaas aad dhegtiin uma maqasho genderka laga warramo jaamacadka haddaad imka tagto xuquuqda genderka waar ma iska tidhaa xuquuqda isaga ba ka warrantaan male and female baynu naqaanay xuquuq sagas wax sheegaya maqlimays xuquuqda genderka baa la isodhanaya waa erayo la isu hadoodilayo waayo genderku waxaynu naqaanay ma masculine female iyo male kaynu naqaanay maaha dee xad bay soo gaadhsiisantay mustalaxaadka saa loo bedelay imka galbeedka haddaad tagto waraqaa la buuxiyo berigii hore waraaqda markaad buuxinaysa waxaa la buuxin jiray nin iyo xaaskii baa ku qoraa imika maaha waa laga takhallusay waxaa lagu qoraa partner adiga iyo shariigaaga shariik baa qofka tiin waayo guurku bay yidhahdeen waa sijni sidiisaba waa xabsi gabadha xuquuqdeediioo la dafirayo saa daraaddeed say xuquuqdeedu u cad u muuqato kow marka hore inay partnertay waa in la muujiya inay shariigtay waa marka labaade si cid kale loo soo hoosgeliyo labada isqaba nimanka ahi waa partner labada dumarka waa partner ninkii iyo gabadhii la yaqaanay waa partner eraygii hore waa loo yaqaanay guurku nin iyo gabadh buu sheegi jiray si kaa loogaba takhalluso ayaa loo isticmaalay mustalax la yidhaha partners dadka shariiga ah cuqalada reer galbeed ummad waliba cuqalay leedahay falaasafay leedahay aqoonyahan bay leedahay cilmi baadhayaal bay leedahay waxaanu sax bay u arkaan maya in badan oo cuqaladooda ka mid ah waxaan qalad u arka in badan oo aqoonyahankooda ka mid ah u arka dariiq lunsan inuu yahay doodahoodu weli waa duni xoro doodahoodu waa iska socdaan looguma hanjabo united nation baa caynkan yidhi kan baa innagaa laynugu hanjabaya doodahoodu iska socdaan waa dhaweyda canada marayay dood ka socotay nin baa doodaya wuxuu leeyahay raggana ragga u guursanaya dumarkana dumarka u guursan haddaad rabtaan inay sii jirta buu yidhi hal su-aaluun ha layga jawaabo 60 sano kadib canada ciddii degaysa ii sheega buu yidhi muxuu uga jeedaa dee wuxuu uga jeedaa nin guursaday iyo gabadh guursaday ma cid bay dhalayaan 60 sano gudahood bay maranayaan dadkani buu yidhi waddanka ciddaynu siinaynu sheegay imaka yani maaha caqliga wax gala buu leeyahy logicba maaha haddaad raggana ragga ku darto dumarkana dumar ku darto dad min carruur jiri mayse waddankan yaa yeelanaya buu leeyahay 60 sanadood kadib macnuhu muxuu yahay aan u jeedaa macnahan u socdaa waxa weeyaan ma aha westranko dham inay dadku daafada yihiin dad wada liitayna yihiin dad akhlaaqda ka wada dhibatayna yihiin dad wada xunina yihiin sidaa ma aha saa ma aha laakiin waxay tahay waa thaqaafad dabada laga riixayo dad gaara iyo ururo gaara iyo bulsho gaara ay dabada ka riixayaan siyaasiyiintuna mushkilad baa haysata la yidhaahdo codka ah
maanta maraykan dee ragga kore iyo dumarka kore waa bilmalaayiin madaxweynaha ka hadla dee wuu dhacaya cod heli maayo muxuu samaynaya haddaan odhanin waan idin taageerayaa dee hadhow sanduuqa madow bay kaga ridayaan soo bixi maayo idan macnuhu ma aha qof kastoo madax oo galbeed jooga ama qof kastoo professora ama aqoon-yahana ama waayo-araga ama caynka oo galbeed jooga inuu qof xun oo waxaan taageeraya yahay maaha laakiin macnuhu waxa weeyaan afkaartan baa hadda saytarayso meel adag bay la maraysaa waxay la maraysaa xad lagu xidhay afkaartan iyo xuquuqda bini aadamka la isku xidhay marka haddaad ka hadasho xaqii bini aadamka cunsuri baa taa lagu leeyahay cunsuriyadda sagaskaad wadaa baa lagu odhanaya cunsuriyad xagga galmada ku saabsan ayaad wadaa taasi waxay keensatoo abuurtay in xataa la xallili kari waayo oo inagu maanta mashkilaadeen leenahay inuu taaglaanay maalan qaadka ma cid baa maanta wanaag u haysataa maya dadkeenna cuqalada waxgaradka maamulka dowladaha culamada bulshada rag iyo dumar waa la wada arkaya balaaye inuu yahay qof maanta ammaano miyaa jira qaad maya laakiin xal miyaynu haynaa qof odhanaya hala joojiyo ma jiraayo oo aan dib u soo gelin mase soconaysaa haddaynu dhanaahno hadda yani xad buu soo gaadhay uu xadhigga goostay xuluul waaweyn in la helo mooyaane inay suurtagal ahayn in si fudud halkaasoo kale ay la maraysaa iyagana maanta waxaa laga yaabaa inagu haddaynu 60kii joogi lahayn oo aynu saynu maanta qaadka u garanayno u garan lahayn waxaa laga yaabi lahaa dowladaheenna culamadeenna dadku intay isu tagaanba halkaa in geed laynagaga xidhi lahaa la yarayn lahaa bulshada aanu ku faafeen idan maanta markaynu tajribadiisii hellay iyo wuxuu dhalo iyo waxaa yimi xilli aynan wax badan qaban karaynin waa kadalik galbeed maanta mushkilaadkani way jiraan waa bulshadiiyo xagga hoose iska soo beddelaysaa laakiin waxay arkayaan bulshadiiyo tarantii luntay waxaanay lumeen waxaasoo dhan markaan isku soo daro waxaan rabaa inaan warka soo koobo waxaas afkaarta lacagta wadata ee socota ee qaanuunka wadata ee united nation xambaarsan ee 1200 oo NGO wax ku dhowdhow wadaan waxaasoo dhan marka la isku daro waa wax guriga muslimka maanta ku ah tahdiid mid dakhliya isna jira marka oo u baahan ka hortagis badan isaguna waxaan leenahay waxaynu u baahannahay nidaamkii guurka inaynu dib u adkayno oo fudaydino oo guurku wax fudud oo qof waliba guursan karo noqdo oo tacqiidaadka tirada badan leeda la daba wada laga daayo waxaynu u baahannahay inaynu hooyanimada sharaxno oo tilmaamno in hooyo la noqdo inay ka qurux badan tahay in engineer la noqdo iyo engineerad engineerku muxuu soo saaraa daar buu dhisaa soo maaha ama computer buu dhisaa hooyaduna maxay dhashaa qof bini aadam ay keentaa iyo ma bulshada ku faa'iido badan bulshada ma qofka daar ku soo kordhiya faa'iido mise qofka bini aadam soo kordhiya waa shaqo bulshada bini aadam qabto shaqada ugu qiimo badan la laakiin haddii laga dhigo islaanta waa maxbuusado dumarkan kijada iyo guriga dhexdiisa lagu xidho sariirta iyo kijada ku dhex xidhan tahay haddii la yidhaahdo waxa loo baahnaa inay mutacallimad noqoto dayarada kiciso caynka waar kuwii kiciyey waxba ma hayaan kuwii dawladda cirka u diray waxba ma hayaan family ma hayo walidaalika inaynu hooyanimadu wax qiimo la tahay sharaxno waanay dhexdeenna wax qiimo liidata ku noqonin ama aan la liidin hooyanimo iyadoo ay bulshada magac iyo maamuus ku yeelato oo lagu ixtiraamo waxaynu u baahannahay in carruurta la ixtiraamo xuquuqdooda la siiyo walidalik ba ururada muslimiinta maalan azhar hay-a alcaalamiya lilgaata hoos timaada qaybteedan ku saabsan carruurta iyo usrada islamic charter bay leeyihin ay soo saareen culamo badan oo muslimiin ka qayb gasheen ururo badan oo muslimiin qaateen islamic charterkaasi wuxuu ka koobay 164 qodob oo sugaya xuquuqda haweeneyda ilmaha iyo qoyska dhamaanteed waa 164 qodob oo laga soo qaatay sharciga islaamiga si dib ummadda muslimiinta dhexdooda loogu faafiyo umuman waxaan leenahay taxadiga daakhiliga ina haysta ee ugu weyn waa jahlun bidiin taxadiga daakhiliga ee ugu weyn
challenge-ka ugu adag ee muslimka haysta maanta waa jahlun bidiin waa diintiisa uu jaahil ka yahay iyada sababta in qoysasku burburaan waana cadhaysanayo sheekh islaantii 3 baan ku furay maxaan yeelaaba ku odhanay dee waxay ahayd ilaa way kaa fuqaysaa haddaad mid quraba ku furtee socodka ama miyay ku dhegsanaanaysaa hadduu mar qura furo fuqaysaa laakiin jahliga wuxuu gaadhay xad uu isleeyahay iska reebiba kari maysid inaad 3 sheegta mooyaane idan jahliga ummadda haysta qoysku waxay culimada muslimiinta tilmaamayaan maalan 5 qodob bay maqaasida qoyska ku tilmaamayaan 5 qodob qodobka koowaad ee qoyska looga dalnayo waxa weeyaan waa xifdu nasl in jinsi albashari la ilaaliyo binaadamku inaanu dabar go'in maanta reer galbeed wadana waaweyn oo kamid ah dabar go'aya si yaraanaya aqoonyahankooda rag badan oo kamid ah bogaag qoraya ay leeyihiin waanu maranaynaa ma ahayn dawladda ku soo duuleen waa inay wax dhali waayeen dumarkoodii laba sababoodba wala loolamaya gabadha haday wax dhasho soo ninka ka hadhi mayso ninka iska celinaysa de wasiirnimo ay raadinaysa madaxweynenimo ay raadinaysa si ay taa u samayso waa inay 30 sano jaamacada iyo dhowr iyo 10 sano experience soo gasha oo axzaab iyo shaqo iyo xoogsiya 40 iyo dhowr markay gaadhana da ilma kala tage laakiin waa hal nin iyaduna markaas iyo rag iska celinaysa noqoto jinsi albashari si loo ilaaliyo guur baa loo baahan yahay guur qaabkii sharciga ahaa u dhaca nin iyo gabadhii la yaqaanay ah si bulshadu deganaanshiyo xasilooni ay u hesho guur baa loo baahan yahay taxqiiq as-sakan wal mawadda wal rahma waa maqsad labaad meel qofka binaadamkii uu ku nasto nin iyo gabadhba qofka binaadamkii gurigiisa ku nastaa gurigiisu naxariis ka helaa gurigiisu deganaanshiyo ka helaa gurigiisa stressku kaga hadhaa ولذلك ما إله إلا هو من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة مقصدك مقاصد دواوين الجورك وحكم ده إن لا إلاليا نصبك أبترسين تدتك إليين يا علمه عد حنان يسوع كوريسو وكحرين يكمدين لها كوي دولدو كوريين كوري واي dunida maanta waxa la yiraahdaa child delinquency baa waalay junuux al-atfal carruurta yaryar dambiilayaasha dunida waaweyn waxaad arkaysaa xabsiyo dhan oo juvenile prisons la yiraahdo xabsiyada carruurta yaryar waa carruur yaryar oo mujrimiin noqotay wax dilayso wax boobayso maxaa keenay inta ugu badan ama guri aan jirin bay ku soo koreen ama sharci la'aan bay ku dhasheen dibadda iskaga biireen ama meelaha dawladuhu hayaan bay ku soo koreen ama wax la mid ah ولذلك النصب كلا إلي دراد بشريعة الإسلامكو زنا ممنوع ذي وتبني عروت اللي يبصدا أما لما قعوا ممنوع ذي وعدة اللي تشدينه قبله عدة ترسطه والله ممنوع قبله رحب كذا وحكوا شرينه قرصه وإثبات النسب للسمي وجحد يسائل نظفر الشرع اللي قد شيء وحاصل أحكام القرآن كور رميه ومن أجل حفظ النسب الله إلى قفكم مركم ميل كترسي وكفانا kada abaha garanayso hooyada garanayso ka waran nin weyn oo konton jiro kula abahay baa raadinaya yurub waa caadi oo kolba DNA meel qaadayo soconayo le waxa raadinaya cidii dhashay ma hayo waa madaxweynaha laga yaabaa ninka kan ana bihi garanay waa mushkila waa qof daba go'an qodobka shanaad مقصدك جورك اللي قد اللي وحوي أنا الحساب إن لو دور سناده وان سيدي بهايم تدتكو يسكرين حولا ما هدتكو وبني آدم كنا دقم إنهم إلا كالأنعام بل هم ضلوا سبيل قارب إلهي كتلمهم وإنه بني آدم نقضة ولذلك النبي يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج قربك وقدم بأي شنات كورافات بوهاي qoyska loo sameeyaa waa xifdu tadayyun baan idinleeyahay wayn diinta lagu ilaaliyo oo lagu rabeeyo oo lagu koro oo u noqdo meesha dilaacisa ubadka cusub ee ummadda waayo gurigu waa meesha ku dheer bulshadu ay ku kulanto raggeeda iyo labkeeda waaweynkeeda iyo yaryarkeeda iyo carruurteeda iyo dhalinyaradeedu guray wada joogaan
suuqa marka loo baxo way kala baxaan ciyaalku iskuul bay tagaan dadka waaweyn shaqo iyo xafiisyay tagaan dumarku guri bay joogaan waa la kala baxaa suuqa waa kala suuq laakiin meesha intuba ay isugu yimaadaan iskaga war hayaan ee afkaarta isku weydaarsadaan ee wax ku noqdaan waa guriga dumarkii jooga raggii jooga caruurtii joogta cid waliba joogta walidaalika ayuha alikhwa taxaddiga ama challengeska reerka haysta kaa khaarijiga iyo kaa daakhiligaaba markaynu isku darro oo dhibta ugu badan ay ku salaysantahay ima aljahlu wa ima altakhwiifu waltajwiicu walcunf jahli innaga inaga haysta diinteennii iyo waxa inagu xeeran jahli inaga haysta waxa laynoo soo waaridee laynoo dhigayo ee kontonka lakab ee ka u sarreeyana aad arkayso inta kalena aanad arkaynin waxaan laynoo soo waaridayee lacagta lagu wado inaad dhegaysataa $10 la isku siiyaa soomaha NGO-yada tan waa inaad ka qayb gasho soo dhegaysato ayaad maalintii yoomiye leedahay $10 baad leedahay $10 caqligaagaad ku iibsatay ogsanow $10 bilaash ma aha waa 10 wax lagugu sheegayo waa 10 afkaariyadana laga dhaadhacsanayo waa 10 binaadamku waxbuu kala iibsadaa dadkani waxay barteen afkaarta sida loo suuq geeyo suuqgeyntu maaha waan ku dilayaa والله إنك له هذا الراعي وإذا هو يدي ليه ساعد اسكبر راعي الدنيا ده الراعي وإذا هو كدي يعني كبر راعي لكن مبادئ ده يدي ما هي أفكار هي واحد بين هذا بقوه يستر ولا سوق هي ويسوق يستين كودي ويكاغتين هذيك أرد يتجيوله بروح كجارية ما اللي يروح الكيران ما أنت كلها هي باك جارية هذيك مالك استب بروجكت قرية بروجكت قولك فرعوني قام حقوق الضمر قام حقوق العرورة قام حقوق وحن كورما يا وضع هذا بروجكت ورانيا ويالو فنقرينيا إذن إما الجهل ينوين وضع إما التزيين إيا وحنو اللي ينود الدلاليين نقول وضع حقهم قولك اللي ينقى وضع إيا مررك قاركود اللي يسيبها الشبيو والدولة دا قاركود ضعف الدرادود وحي أركيان باني ديدي كريم waayo waxa la oranayaa xuquuqda bini'aadamka ku xad gudubteen haddaad waxa sameeysan cunaqabatay markaas ninkii dhamaaya madaxda ah sida miskiinka isnabaya waayo qaanuun dawli waa isaga lagu qaadaya waxay taagantahay hadda oo United Nations soo wada maxkamada jinaa'iya talyaaniga markay 98 ku shirayeen ma filaynaytay waxa la horgeeyay in xeerka xuquuqda bini'aadamka lagu gudbay soo imka maxkamad lama sameeynin hadii goor Afrikaanka la saaro madaxda Afrikaanku baa la saaray dameed maqashay cid kale oo la saaray yeen yaro bal kanisa maxkamadaasi dunida la sheegayo waxa dadka lagu saaraa bini'aadamnimada ku xad gudbeen waxa la rabaa in lagu daro bini'aadamnimada xad gudubkeedu wadan kasta oo leh sharci ciqaaba ragga u taga ama dumarka u taga doodaaba hadda socota oo wadankii aqbali waaye madaxdiisa hadhow in loo waarida maxay lahay baa la geynaya waayo xuquuqda jinsiga ee bini'aadamka cunsuri ku noqotay baad xadgudubta idan ayuha alahibba badaaisha aynu rabno inaynu samayna ugu horeyn ilaahay wuxuu yidhi alladina qaala lahum an-nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum iimanan wa qalu hasbuna allah wa ni'mal wakeel ilaahay wuxuu leeyahay fala takhafuhu wa khafuni in kuntum mu'minin إلهي وحين لي ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء إلهي وحين لي إن لمد نغطان بيدونيا هذا بينه مرة بناين إن لمد نغطان وحي واحترها waxaan wax tarayn maya waan rabnaa inaan Mareykan iyo Yurub kala mid noqono technology-ga iyo lacagta iyo horumarka inaan kala mid noqono waan rabnaa bal inaan wax dheeraano ma rabno khasiisnimada iyo falxumada iyo guri la'aanta iyo nidaam xumada inaan kala mid noqono laakiin iyagu cagsiga inaga rabaan iyana waxay ku leeyihiin technology-gu maya haddaad nuclear ka samaysato halkaas lagu dhigaya ما بدع كرتو
annagun baa mas-uuliyadda qaadi karna idinku dad yar yar aan caqligoodu badnayn oo mas-uuliyadda nuclearka aan xambaari karin baa tihi walidalik kuwa waaweynun baa mas-uuliyadda ahayn kara hubka wax gumaada hubka horumara hubka caynkana waxaa ma samaysan kartid technology-ga cidi kuu soo waaridi mayso laakiin waxa aan wax tarin waxa allaaliya waxa aan wax tarin waa lagu soo waaridaya inana waxaan leenahay war xagga kale u dhiga iyana waxay leeyihin may xaggan baan u dhigaynaa iyagu waxay leeyihin waxa faa'iidada leh xaggay joogayaan waxa kalena nagala mid noqda innaguna waxaan leenahay quri wax weeyaan war isweydaariya kan idinba ku jabtay ee naga daaya idinba waa ku jabteen ee naga daayo xagga u dhigo waxa faa'iidada leh xagga kale soo mariya haddaba waa walan tarda canka alyahuudu wala nasaara xataa tattabica millatahum waxaynu u baahanay markaa taxadiga guriga haysta marka aan soo koobo warkiis waxa weeyaan gurigu waa meesha qura ee sharci islaameed ku hadhay dunida alaxwaal shakhsiya dowladaha muslimkiina ay inta badan sharci kaga dhaqmaan intaa haddii laynaga saaro war diin waxba kama soo hadhin salaada masaajidkaa soo hadhaysa haddii intaasi baabaado waxba ma soo hadhin walidalik ka umma waa inaynu mowqif ka lahaanaa maxaa xuquuq dumara maxaan xuquuq dumar ahayn maxaa xuquuq raga maxaan xuquuq rag ahayn maxaa xuquuq caruureeda maxaan alcunfi lusari baa lagu leeyahay dabeetana waa maxay cunfiga usariga lagu sheegaya waxay ku leeyihiin islaantaad ku xadgudubta haddaba waa ninka islaantiisii u tegay baa waxaa la qorayaa waa raybkay ka mid tahay waxay ka mid tahay kufsiga islaanta ku yara diididan baad u tagtaa gule waa kufsi xeerka kufsigaa lagugu qaadaya marka caalamku halkaasuu maraya waxaynu u baahannahay markaa inaynu diinteennu mawaaqifta istaagtay waxaas oo dhanna godolooladeenna keenta haddaynan inagu godoloolada lahayn cidi inagama soo gasheen innagaa xaqa carruurta ku gudbaynaa ka dumarka ku gudbaynaa kan ku gudbaynaa waxaan o dhan samaynaynaa waxaynu u baahannahay intaynu diinteenna fahamno dowlad iyo bulsho iyo mujtamac baynu iyada ku dhaqanno ilaahay baana xuquuqda inoo qaybiyey xuquuqdani mid rag qaybiyey maaha mid dumar qaybiyeyna maaha mid carruure qaybisayna maaha waa xuquuq rabbigiina wada abuurtay mid walba uu xaq siiyey qaabna uu yidhi u noolaada qaabkaasina inugu filan walidalik waxaan kusoo koobaya markaa taxadiyaadka guriga haystaa way tiro badan yihiin wax muxaadaro iyo laba lagu soo koobi kara maaha waayo gurigu bulshadoo dhan buu matalaa dadkii waaweynaa dadkii yarnaa carruurtii dumarkii bulshadoo dhan buu matalaa bulshada waxa dhib ka jiro o dhami guriga wuu soo gaadhaya waxaynu u baahnay markaa inaynu islaamka dib ugu noqonno dad muslimiin oo dhabana noqonno afkaartan iyo waxaan la sheegaya kale reer galbeedna inaynu ka tallaabsanno inta khayrka ay haystaanna inaynu u xaydano saynu u hello asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu